بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب سيدة مالك السؤال كسوك انتهين سلامتا إسلام كاهبان لدينكو سلامية أردي ذا يويبا معلمين تيدا أنت مقال كي قدهوانيسة خيمة إيا قدرين أيانقوها إياه عوان كيني اللبات أما 10 كيني اللبات بيولوجيغا grade 1 grade 9 ka ayaan markaa insha Allah ka hadli doonaa. grade 9 ka insha Allah waa soo gabagabeyn doonaa caawa oo ay taariikhda ku asteesan tahay 8 bisha 8aad ee 2019 sidoo kale waxaan isku diri doonaa chapter exercise haduu Ilaahay yiraahdo kadibna jawaabihii ayaan igala sugi doonaa. waayahay 10 keeni wuxuu ku bilaabanayaa characteristics of living organisms dabciyaadka noolaha ay leeyihiin. sheygan markii la leeyahay waa noole, markii noole lagu tirinayo sifooyinka looga baahan yahay waxay yihiin. living things nooluhu waa la yiri are organisms that have certain waa noole leh baa la yiri certain basic characteristics wuxuu leeyahay dabeecado gaar ah oo asaasi ah. normally sida caadigaana noocaas loo yaqaano life processes maraaxil noole. these are kuwaasina waxaa ka mid ah baa la yiri cellular organization ayaa ku ka mid ah. all living organisms macnaha waa isku tag saleed waa isku tal unugeed weeyaan. all living organisms dhammaan noolaha la yiri are made up of wuxuu ka samaysan yahay cells unugyo ayuu ka samaysan yahay. a cell unugana is a basic unit waa halbeega asaasiga ah of life ee nolosha weeya. some living organisms noolaha qaarkii ayaa consist of waxay ka kooban yihiin only a single cell unug keli ah ayay ka kooban yihiin unug halaalay ka kooban yihiin. these organisms noolayaashanina are called waxaa la yiraahdaa unicellular organisms hal unugley baa la yiraahdaa. most living organisms laakiin badanaa nooluhu are made up of wuxuu ka samaysan yahay baa la yiri many cells unugyo badan buu ka samaysan yahay. and they are called waxaana la yiraahdaa multicellular organism baa la yiraahdaa unug badanayaal. nutrition ka mid ah waxyaabaha dabeecadaha lagu yaqaan living organismska. nutrition maxaa la yiraahdaa is taking of materials of for energy growth and development. is taking wa in la qaato of materials in walax la qaato way for energy loo qaato tamar ahaan loo qaato for growth koritaan ahaan loo qaato and for development iyo horumar ahaan loo qaato way. metabolism maxaa la yiraahdaa is the sum waa wadarta is the sum isku darka of the total biochemical reactions iyo isku guud ahaanta key biochemical reaction falgalka nolol kiimikeedka taking place ee ka dhaca inside the body gudaha jirka of living organisms ee noolaha. respiration maxaa la yiraahdaa describes respiration waxaa la yiri wuxuu qeexaa ay qeexdaa the chemical reaction falgalka kiimikeed ee in cells unugyada ka dhex jira that break down nutrients molecules taasoo marka unuga dhexdiisa lagu burburinayo molecuulada nafaqada ahi and release lana soo deynayo energy tamarta laga soo deynayo. growth ka mid ah waxaan ku jirnaa weel noolaha lagu yaqaano growth and development koritaan iyo horumar. is koritaan maxaa la yiraahdaa marka growth maxaa la yiraahdaa is a permanent increase waa ziyaadada joogtada ahi ee in size cabir ahaan qofka uu ziyaado ama dhirtu ay cabir ahaan u siyaado weeye. reproduction taran reproduction maxaa la yiraahdaa is the process marxalada weeye of producing ee lagu soo saarayo offspring duriyad lagu soo saarayo awlaad lagu soo saarayo weeye.
awlaadaasoo of the same kind isku nooc ah lagu soo saarayo. Some of you waxaa aaminsan dadka qaar waxay aaminsan yihiin bini aadamka mas buu dhalaa, mas baa kula dhashay, kuuley cali banjara walaashaada ah ama adeerkaagii ah. waxaas wax ma jiro, wax kama jiraan saari. Offspring of the same kind waa taran inuu sameeyo wuxuu sameynayaa nooc isku hal ah, taran ah buu sameynayaa. saas weeyaan. bini aadamku waa laga yaabaa inuu wax mas wa eg dhalo, laakiin waa inuu bini aadam ahaada. Reproduction tarankuna waxaa la yidhi is two of types, laba noocood weeye. These are waxayna kala yihiin sexual reproduction, waa maxay? waa taran galmood, and asexual reproduction, iyo waa taran aan galmood ahayn. In a sexual reproduction, taran galmoodku male lab and female iyo dhadig gametes waxaa laga wadaa waa ovumkii iyo spermkii ayaa shahwadii iyo waxaa weeye ugxaantii ayaa fuse isku dhalaalaya wey to form say u sameeyaan a zygote baa sameysmaya. Zygote is a first cell, waa unuga ugu horeeya abuurma wey, which kaasoo grows into an adult qaangaaraya ama koraya weeyaan, oo qaangaaraya oo weynaanaya. In a sexual reproduction, taran galmood la-aantu waa taranka aan galmoodka lahayna, organisms originate from, nooluhu waxaa yidhi wuxuu kasoo unkumayaa single parent, waalid keli ah buu kasoo unkumayaa. Sexual reproductionkan waxaa yidhi is waxaa waaye without gametes waaye, oo ma jiraan ugxaan iyo shahwo tuna ma jirta wey. Reproductive cells unug baa tarmaya marka. Gaseous exchange, sidoo kale nooluhu haddii shayga noolo lagu tilmaamayo waa in sidoo kale laga helaa gaseous exchange, neef isdhaafsi waa jirtaa. Gas exchange maxaa la yidhaahdaa? is a process, waa xaalada wey of taking in ee lagu qaadanayo and out laguna soo saarayo of air hawa lagu soo saarayo, ama hawa lagu qaadanayo ama hawa lagu soo saarayo. All living organisms, dhammaan noolaha dhammaantiisna carry out wuu dhammaystiraa baa layidhi gaseous exchange, neef isdhaafsiga wuu dhammaystiraa, oo ah inuu hawa soo qaato hawana uu sii dayo. waa inuu qofka uu soo qaato oxygen uu sii daayo carbon iyo laba oxygen. Excretion maxaa la yidhaahdaa? is the removal, waa saaritaanka wey, oo from organism oo nooluhu iska soo saarayo toxic materials, walaxda sunta and substances iyo walaxda oo in excess of requirements, baahida loo qabo ka badan, yani waxyaabaha excesska ah ay aadka u taya badan oo ka badan jirka inta baahi uu kaga qabo ka badan in la soo saaro weeyaan. taasa waxaa la yidhahdaa excretion baa la yidhahdaa. Movement, respiration describes the chemical reaction in this. Okay, cafwan, movementiga meeshaan wuu nagu soo qaldamay oo waa idinka raaligelinayaa. cafwan, movement uu kusoo qalday meesha. cafwan, movement waxaan dhahaynaa is a process, waa marxalada, is a process, waa marxalada of living, nooluhu move from one place, uu hal meel ka imaanayo, to uu aadayo another place, meel kale uu aadayo wey. taasan waxaan dhahaynaa is a movement baan dhahaynaa. waa maraaxisha noolahu uu meel ka baxayo from one place dheh, from one place, hal meel, from one place, hal meel uu ka tegayo, to another place, uu meel kale aadayo weeyaan. waayahay. Irritability or sensitivity, is the ability, waa awooddaasoo to detect uu ku ogaanayo and respond uu kagana jawaabayo to changes in the environment, bay-ada deegaanka waxa ka dhacayo, isrogroga ka dhacaya deegaanka, awoodda uu kaga jawaabayo. marka tanin waxaa la yidhi noolaha wuxuu leeyahay awood uu bay-ada isrogrogeeda uu kaga jawaabayo. noolaha qaar baa markuu isbedelo deegaanka ka guuraba guud ahaan guura. noolaha qaarna waxay sameeyaan oo way la qabsadaan oo xaalad kastoo ay tahay meelna uma dhaqaaqaan iyagu,
kuwa kamid ah kuwa kalena waxaa jira waxay soo baxsadaan features xubna ayay soo baxsadaan dareemo kale la yimaadaan xubnahaasoo ka caawinaya marka to survive that environment inay sii joogaan ama ay kusii noolaadaan bay-adaasi. waayahay death baa nooga soo hartay. death maxaa la yidhaahday? is the end waa dhamaadka of life ee nolosha. dhamaadka nolosha shayga markuu noolo yahay dhammaad ayuu leeyahay, meel uu ku dhammaado ayuu leeyahay weeyaan. laa yasta'khiruuna saacatan walaa yastaqdimuun. saacadda dibna looma dhigayo, lamana soo hormarinayo. qof kasta waqtigiisuu dhimanaya. all living creatures dhammaan noolayaasha abuuran are subjected waxay hordhac u yihiin baa layidhi to death, dhimasho ay hordhac u yihiin. khaatamada allah noo hagaajiyo asxaabay. markaan waxaan galaynaa differences farqiyaadka oo between u dhexeeya plants and animals. wuxuu u dhexeeyaa xayawaanada iyo dhirta u dhexeeyaa weeye. plants and animals marka waan isku soo xisxijiyo, laakiin waxaa noo hormaraya mar walba sifada koowaad waxaa noo qaadan doona plantska insha allah. they make plants waxay sameysanayaan ama ay sameysaanba their own food, ayaga cunadooda sameysaa layidhi. laakiin animalsku they cannot make their own food, cunadooda iyagu ma sameysan karaan weeyaan. marka laga hadlayo koritaanka dhirta, growth dhirtu akas growth koritaanka dhirtu leh akas wuxuu ka dhacaa at the tips feed of the root, fiidaha jirida xididaha ayuu ka dhacaa. tips of the root wuxuu ka dhacaa fiida xididku ka dhacaa, and the shoot iyo shootka ayuu ka dhacaa. this midaanina scarlet waxaa loogu yeeraa apical growth baa la yidhaahdaa. it takes place waxay dhacaysaa arrintan iyada ah ama waxay soconaysaa throughout life, nolosha intay ka dhamaato of the plants, ilay nolosha dhirta ka dhamaato ayay soconaysaa wey. oo koritaankaasi sidaa buu u soconayaa. laakiin marka la joogo animalka growth waxaa la yidhi koritaanka animalka weeyaanu akas wuxuu ka dhacaa baa lahay marka hore in all parts, dhammaan qeybaha of the body ee jirka ayuu ka dhacaa marka ugu horeysa. oo halka geedahan uu ka dhacayo tips of the root, bini aadamka wuxuu ka dhacayaa all parts of the body. this is midaanina colet waxaa lagu magacaabaa weye intercalary growth baa la yidhaahdaa. halka dhirtan ay ahayd apical growth. it midaaniyaa la yidhi stops way istaagaysaa, halka tii horena ay ka ahayd it takes place throughout. tani waxaa la yidhi it stops, xayawaanka koritaankiisa wuu istaagayaa weeyaan. when goortii oo adult age, qofka markuu qaangaaro, ama xayawaanka adult age is reached, markii la gaaro qaangaarkii koritaankii wuu dhammaanayaa oo qofkii dib buu usoo laabanayaa weeyaan. qofki dib buu usoo laabanayaa. waayahay weli waxaan ku jirnaa kala duwanaanshaha noolaha iyo maarata animalka iyo weliba dhirta. they respond si tartiib, they respond way ka jawaabaan baa layidhi slowly, si tartiib ayay ugu jawaabeen maaragtayo waxaan leenahay they respond slowly to stimuli. waxay markaasi sabab u naqdaan inay si tartiib ah u jawaabaan. they respond way jawaabaan wey slowly, si tartiib ah ayay u jawaabaanu to stimula, sabab naqashadooda yaa in wax isbedel ay ku sameeyaan si tartiib ah ay isbedel ugu sameeyaan. laakiin animalsku si degdeg ah ayay ugu sameeyaan isbedel weeyaan. they respond quickly to stimula. sabab u naqashada xayawaanku mid degdeg ah weeyaan. balance dhirtu generally guud ahaan stationary, mid taagan weeye. dhir marna socod lagama sugayo oo meeshaadi unbay sugnaanaysaa. 10 sano meesha ugu tagtay aad ugu soo laabanaysaa. laakiin 10 sano kadib adigoo weynaaday oo koritaankii joojiyey, dhirtan waxaad arkaysaa oo sii weynaanaysa. most animals baa layidhi noolaha badiga cafwan xayawaanada badinkood baa layidhi move from one place to another, meel bay ka dhaqaaqaan oo meel kale ayay aadaan. arigan haddii maanta inta aad dhigto meesha hadaadan xirxirin uguma imaanaysid saacada kadib oo uu ka dhaqaaqaya. bani aadamkana sidoo kale weeyaan, xayawaan dhan wuu dhaqaaqayaa. marka they store, dhirtu waxaa la yidhi waxay keydsadaan waste products, walaxda wasaqda ah way keydiyaan. laakiin waxay u keediyaan si oo harmless, saameyn la-aan ah. si saameyn la-aan ah ayay u xifdiyaan baa yidhi. harmless business, sida walax aan saameyn ku lahayn oo kale ayay u hayaan saa weeyaan. oo wasaqdooda waste products macnaha waxyaaba wasaqda ahi
iyagu way kaydsadaan ma tuuraan oo ma soo qashin saaraan wey until the plant is die dhirta ay u dhimanaysaa un ma samayn karto ma aragtaa excretion ma samayn karto wey they have specialized bini aadamka marka la yiraahdo ama marka la dhaho animalska they have waxay leeyihiin specialized excretory organs waxay leeyihiin xibno qashin saara xibno wax qashin saara oo specialized ah oo gaar ah ay leeyihiin dad xibnahaasoo remove saara waste products waxyaalaha wasaqda ahi meesha ka saara markaan waxaan aadaynaa asxaabay su'aalaha chapter exercise chapter 1 ayaa noo dhamaaday biology grade 9 what's biology maxaa la yiraahdaa define the following terms qeex erayadan soo socda zoology qeex botany qeex microbiology qeex how do biologists work sidoo u shaqeeyaa biologists sidee buu u shaqeeyaa hanaankii waa taqaanaa la maray hanaankaa soo raaci listi waxaad taxdaa the characteristics dabeecadaha of living organisms ee noolaha taxweeye and explain waxaadna ka sheegtaa ka sharaxdaa 3 of them maadaama ay badan yihiin 3 ka mid aan sharaxaad ka bixi wey state 3 differences taxwaadana wuxuu yidhi ama sheeg 3 kala duwanaansho oo between u dhexeeya plants dhirta and animals iyo xayawaanada sheeg right waxaad qortaa 3 reasons 3 sabab qor why biology should be studied sababtee baan u baranaynaa biologyga 3 shay 3 muhiim qor importance of biology ku laabo waayahay explain sharax baa lagu yidhi what you understand waxaad ka fahantay the following words erada soo socda anatomy physiology genetics ecology histology intaan waxaad ka fahantay sharax baa lagu yidhi who coined the word biology yaa markaa magac bixiyey ereyga biology what respiration maxaa la yidhahdaa stay tax its types noocyada respirationka tax marka meeshaan waxaan mudanayaa meesha kuma soo qaadan aerobic anaerobic aan leeyahay marka su-aasha jawaabteeda differentiate kala sooc the following kuwa soo socda sexual and asexual reproduction sexual reproduction tareen jinsiyadeed and asexual reproduction tareen jinsi laay kala sooc autotrophic and heterotrophic nutrition ayagana kuma jiraan cafia laka karaadi jawaabteeda keen insha allah growth and development ayagana waxaa lagaa rabaa inaad kala socdid ayaa lagaa doonayaa waayahay match the following isku aadi kuwaan histology biologist mycology bacteriology entomology phycology maadan soo qaadanin wax la yidhahda mycology entomology iyo phycology adiga ayaa laga rabaa soo raadiso soo raadi marka waxaa sameynaysaa histology waxaad ku aadinaysaa instead of fungi mia algae mia parasite mia wax uu yahay ayaa ku aadinaysaa marka isku xariiq macnaha waxaa sameynaysaa waa isku xariiqaysaa jawaabahaasi jawaab saxan ayaan kaa rajeynayaa ustaadi haddii markaa su-aalay kugu soo baxaan numberkay whatsappka waa kaasa waad ila soo xiriiri kartaa insha allah muuqaalka sheer garay aad baan kaaga mahad celinayaa waqtiga aad gelisay dhegeysiga iyo weliba daawashada muuqaalkayga waxaan rajeynayaa inuu aad ku intifaacsato dad kalena sidoo kale ay ku intifaacsadaan wassalaamu